adduun iyo dahab iyo waxbay weydiisteen waxaa yidhi waxaas nabigu alayhi salaam ma hayo idin mana hayo kala doorta labo ilaahay rasuulkiisa iyo aakhiro inaad doorataan maya adduunyo inaad doorataan laydin siiyo adduunyo nabiguna alayhi salaam idin furo marka maxaa lagu yidhi nabiga alayhi salaam yaa ayuha nabi qul liazwaajika qul liazwa ku dheh dumarkaaga in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha adduunyada ziinadeeda doonaysaan nabiga alayhi salaam adduunyada ziinadeeda ma doonayay fatacaalayna kaalay umatickunna wa usarrixkunna saraxan jamiila صحيح قرح بدن وسجوتس قرح بدن بالذي سجوتنا يا ودمر الفراي ودمر الفراي لكن محل غفرية سجوتس وناكسن أو قرح بدن على غفرية وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما واي إلهي سبحانه وتعالى وحلي لبضها هدي أي كلا تقاه كلمة اللبضة هذا وصلنا نقطة وحوية حدود إلهي قرك مالها وإلهي سبحانه وتعالى رجع فريو أمرك وفريو أما فرينك أما دقنك وحى إلهي سبحانه وتعالى وكسرية حدود إلهي إلهي حدود إلهي هقد بيننا بس كلمة أدبي وصلنا نونا سورة الطلاق تك سورة البقرة تك سورة النساء تك كله حذر كيسا كله ما أنت ولا صعد إحسان معروف حدود إلهي إلهية رجعنا بسعطة هدي معان لبضة هوين إذا لبضة دلقة لغفري أما صدق هذا دلقة لغفري haddana ninkan intay soo guursatay doonaysa inay mar kale wada dhaqmaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay hadday doonayaan xuduuddii ilaahay ilaaliyaan ya xuduuddii ilaahay ilaaliyaan falaa junaaha calayhima an yataraajac in danna an yuqiima xuduud allah wa tilka xuduud allahi yubayinuha liqowmin yaclamuun haddii la kala tago oo laguba kala dhaqaaqo oo dalqadii saddexaad dhacdo baa-in ay noqoto fain طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره waxa kamida illa isu tanaazulo ilaahay subhanahu wa ta'ala xulay hadii hatta aad kala tagtaan oo la kala tago ya waxyaala qarkood inay afisaan iyadu ay wax afiso meherkeedu waa afin kartaa waligeedu waa afin karaa أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا إله سبحانه وتعالى ولا بقفوا كلا تجي أقويه لا بقفوا كلا دقاقي وإسفري مركز إله إليه سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى إن العفتان هي تقوى الأدو ولا تنسوا الفضل بينكم فضل قد أحدنا هي إلا وننا macaanidaas dadka way ka maqan tahay dagaal unbaa xarb nato iyo warso baa la kala noqonaya markii la isdiro ama xoogaa la isku qabto laba qof oo weligood aan wada dhaqmin weligood aan is arag weligood aan wanaag dhex marin yani gabar baa ila soo hadashay waxay tiri ninkaygii 5 caruur aan isu dhalnay waana kala tagnay haye hal kala tago ma xuma hadii uu sababi timi problema waa dhici karta inay labada qof kala tagaan laakiin aw macruufki hadii labada qof kala tagaan ma dhamaaday macruufka ma dhamaan macruufka ma dhamaan waxa dhamaaday xarigii nikaax ahaa oo labada qof isu hayay ma dhamaaday ya xuquuqda isku لكن معروفك يا فضلك يا وناقي حوض الله إنه رماد إنه قانا ما خاصة هذه أي المدحيالين خاصة هذه المدحيالين
إلهي سبحانه وتعالى وحليه آيات كسورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. يا واي اللبضة وليه إلهي سبحانه وتعالى عنق يدير أما الناس كإن لقى قويه أما أرنكيس إن لقى لفيريو يا هدي كل هالشيان أما كالشوران واحد بما له يقول لي إلهي سبحانه وتعالى يا واي لبضة الشوران ويدي يا أبي سوما labadan marka ilmihi kala jiidanaya oo dagaalka isku cilaanay marka gabadha waxay ku tiri ilaa waagan kala tagnay 5 sano mana wada hadalno maxkamad baa maaragtay markay noo yeerto maxkamad gaalad noo yeerto in halka nin walba isku arka isaguna caruurtu diray iyadan caruurtay diraysa markaasay waxay ka cabanaysaa caruurtii waxay ugu noqdeen caasi abahood waa igu diraya dhibaatooyin baana dhexyaal markaas walaalay haddii ay idinku aad khilaafteen sharciga macruufkii aad goyseen xuduudii aad tallaabteen sideeba dhibkan u iman waay dhibkan waa imanaya marka cishrada wanaagsan oo ragga ilaahay subxaanahu watacaala uu farayo waa inay xusuustaan inay iyaga maslaxa u tahay gurigan iyo gabadhan hadduu doono iyo inuu ku raaxaysto oo ay u joogto waa inuu yani ugu raaxaysta waa inuu cishro wanaagsan kula noolado cishradaas waxaa ka mid a kelimada wanaagsan waxaa ka mid a naxariista iyo dabeecsanaanta waxaa ka mid a cishrada wanaagsan rifqiga ragga laga rabo dhimrinta iyo degnaanta dumarka waa qawaariir nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku sheegay rifqan bilqawaariir qawaariir yaa maxaa waaye muraayadaha maxaa qawaariir qaruuradaha maxay qaruuradu waa jabaysaa markii dhulka haddaa saa ugu turto wax yar waa jabaysaa idinku dhagaxyaal baa tihiin iyagoo quraarado idinka laydinkuma sheegin qaruurad laydinkuma sheegin ma ujeedaa laakiin iyaga waa qawaariir marka qaruuradaha ha isku garaacin oo ha jajabin tartiib aayar akhi rifqan bilqawaariir كو رفقك كمدا دمرنتا حتى هذا واحد فريس أما حتى عرايسنتا هذا دمرن سترتيبه يعني هات وحال ربا أو كمدا 10 داس وناكسن وحا كمدا صبرك دلقاتك كمدا يا إن عندها لقد دبوشة وحيالها أي سمين ساكمدا ما كمل إيش هاد قد دبولت قد البصر عبه هذا قابس كذا يا مركا أما مثلا هدي أي أن هؤلاء هذه صفي عن وصل بحين وجرجي وسكوس وسخيسية على يبا شقينا كتم هذا مس راشين كي مكر سنة قددي مبسلا جرجي نظيف معها سريرتي مجوج لنا عروت وسنحية عسيه أمورت وماشي وسكو ووسخيسية هي جرجي كب حاجة تارسنتها عروتها مرض هذه ميد حاجة داسنتها دايما حاجة داسية وحيال حاجة سلح داسن تلقاها شو حوجا لباه يعني هي إنك اللابط وحلقة بس يابك كلته إنك برضو كفعنا حال الربا يعني عشرة ونكسن وحكم ذا النفقة نفقة شيء أساسي شيء أساسي واجب رجو إليه وحيالها أقبضا نلوش يعني رأسا على عقب وبدلينا كوبي قطع محاضرة قاري أباهنتها إن واحد لنا أرنك النفقة ولو دايي دولتها لو تجي أمريكان أما يوروب أما كندا أما محنكو شجع يوروب أما ملاها كلير عير بقاعدة نساء حاني جربتها عروت هذه يلا دولة على عكس الساعة دولة إنجليز قال لك حسابته معي عروتني قبلها صار لك على حسابته معي يوم القيامة قال لك على حسابته معي هذا الروائنا حماش هذا الروائنا صعوت هذا الروائنا وصل شقة صار هديك له ما ودي سنكرتي هذا إنك وأضيعه نحن نقول إنسان لوجيكلي ها كويتي عدة وحسيسة أدي عيسى عدة وحسيسة نرش هذا
sheeb garaynaysa wuxuu leeyahay gabadhii waxaa rabaa halka inaan ka kaxayo waa i diidan tahay hay maxaa ku diidan tahay maxaa dhacay lacag bay sugaysaa halkan jeeg usoo socday sugaysa ay xagee ku aadaysa ku raacaysa 10 sano maadan masruufin adiga maadan masruuf shilin ma tahay jeegad baa u socda iyo lacag iyo adduun xagee u tagtaa kaaga tag ku raacda ya gorad adiga adduun halaysay adduun baa biisay ayaad waxaad leedahay maxaa maaragtay ya bacda kharaab maalta صح ما صح ما حتى dadkan aad arkaysaan la nooshihiin ee subaxdii maaragtay meelaha buuxiyay tareenada buuxiyay jidadka buuxiyay ordaya wada jarmaadaya inaga dadkeeni in badan waxay u barteen inuu yahay jarmaade inuu yahay socon inuu yahay shaqo raadin ya inuu yahay shaqayn inuu iska qaato waxa la yiraahdo maxay idinku aad ku magacawdaan xeerta kuwa ordaya yaa ku soo shaqeeya adiga taxkooda qaadata lacagtooda canshuurtooda cunto ugumay talagelin arrinka ugumay talagelin noloshooda waxay ugu talagaleen dadkooda ducafada ah dadkooda aan shaqayn dadkooda maartay shaqada ka meermeera ama shaqo waayaha muddo mucayyana dadkooda ducafada ah ya dadkooda liita bay nidaamkan u degsadeen inana waxaanu ka dhiganay qaniimo la helay ma sha Allah warheer dhawaasho waa ka dhacatay maxaa ka dhacday waxaa lagu siinayaa bishii 1000 gani baa lagu siinayaa carruurta iyo xaaska iyo ilmaha iyo waxa isku darto adiguna maxaa shaqadaadu tahay adigu makhaayadaan fariistaayo halkaasaan ka shaqeeya ama waxa waaye Soomaaliyan aad xagan ka soo xagan hawlaha ka soo wadaa xisbiyada oday maqan inta soo bilowd reerkiisa iyo xaaskiisa waxbaan ka oogay حكم قيم يا وقت يا مصروف يا كشقيه ما يقان عدو وقتي وكليه دد وقتي هذول وحو كليه reer baa iga xarimay islaam baanu dir waa kala tagnay dhibaato dhacday arrinkaas waa arrin u baahan muxaadarad gaar u ah laakiin waa tilmaami hada waa tilmaan waxyaalaha maqaabilka u ah inay gabadhu ku adeecdo waxa kamid ah nafaqada masruuf adigu inaad jabto inaad masruufto reerkayga masruuf wixii emergency yimaado meesha caafimaad kada waxyaal emergency xaq u leedahay qaanuun ahaan oo meesha reerkaaga inaad masruufto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rijaal qawamuna ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim المهر بحيان وحين نفقة بحيان أي كم متيستين إن الأضيعه تاني بحين معنى هذا وحوي محلو أضيعه وحكم ذا نفقة ذا هي سخاء هي ديقسي نبل يا عشرة ونكسن كم متى ديقسي نبل يا تمركم متش على بخيلكم متش هذا هذا سكستا نين ماركتي ما شاء الله دين له واركتي ونكسن لكن شرينكي قرش ما تقدر لا حسابته ما يقبل يا تسكيها أدي 20 باوند بقاضي إمسا محاد صوت شاه عانو سنكر باريس محاد صهري لحية 8 باوند إيو 0.75 أو يصدق حدي باوند إيو يلا 20 وصهري حقيقة هي كنت أنت قاضتي غير كي تاسع درتي يا كويري تاسع يا كويري وحس ما حاجة كيرين أنا أقول لك قسمين أدوك دمركم ما جعل حد آخر سنة آخرية حديث كأم زعف ودير وكي هذا إن رفقة معاشرة بالمعروف كمتها حاجة معاشرة بالمعروف كا وح أقوم مهم سن يا إخواني وهذا الك هي معاملك هي حاجة جوجش دنا عاسنا يعني لقى سوق قليل يعني مثلا حق واحد أركيسا ما شاء الله متدينا نفي عنوي قبل وحبا كما شاء قبل يسوتك وحلا ذا وينو إفراء هاي فرا ميسك عايز وصار فرينكي ما حد عاي ما هو أتكيسن كرو ما يلي كرو ما مشاكل وي هذا مركا هوس وسيد الدقنا هوس وسيد باربارنا حاركنا النفقة ذا كم جرتو عبش النفقة ذا كم جرتو عامل كم جرو دل كم جرو جوجشي ولا اسكو ما ندفسين إن عضي سنة مرتو